السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة كسو لواذا برنامجك أما بيجك روضة حسين بيجكاس أو تلاقي إن أمد الصوماليات كوعي جريو أبيوسك إن أما هذا كان domestic violence كلو يقانو أما هذا كان عروضة لو سميه كوفسي عروضة أو child sexual abuse لو يقانو إن عوضة محاولة تلاقي برنامج كان kadib markii ay gabar walaashay ah isoo weydiisay sidii ay mataqaanaa caruurteeda uga badbaadin lahayd kufsiga maadaama oo saan u wada ognahay media Soomaalida wargeyska Soomaalida ay bariyahan ugu soo bateen kiisas badan oo ciyaal la farxumiyay marka waxaan rabaa intaan barnaamijka u guda galin maadaama uu live yahay inaad ii sheegtaan inaad imaqleysaan iyo in kale idinkoo maadsan haddaa imaqleysiin ahaa ii soo qora ma imaqleysiin wala imaqlaa canab maryan walaalaha ku jiraan codkayga see waaye mala imaqlaa السلام عليكم. اوكي هذا نوع مهتمتاي انت صحن سيغا انا مخليسين ان كله marka sidaan u ognahay marka ilaahay qofka uu ku manaysto caruurta ilaan caruurta isaga bixiya anaka isma siino waxa markaas ku koreysa mas'uuliyad weyn oo ah habkii aad u kori lahayd caruurtaada waa inaad diinta bartaa waa inaad waxbarasho adduun bartaa waa inaad akhlaaq bartaa waa inaad bartaa siday naftooda u badbaadin lahaayeen ee adduunyada ugu noolaan lahaayeen so marka macnaha waxa waaye waalidnimada waxa waaye shaqadaada ugu weyn inaad caruurta u diyaarisid mustaqbalkooda marka waxaa jira siyaabo badan oo caruurta aan ku barno inay naftooda ka taxadiraan tusaale ahaan waxaan u sheegnaa ilmaha inay iska ilaaliyaan jidka markay goynayaan inay iska ilaaliyaan qof aysan aqoonin oo stranger ah inaysan la hadlin ama iska raacin waxaan barnaa waxyaabaha kulul inay iska ilaaliyaan sida jalmada oo kale sida kuukarka inaysan taabanin marka waxaasoo dhan waa safety aan iyaga bareeno body safety ma aragta oo jirkooda aan bareeno inay ay ka badbaadiyaan khatarta ku heerarsan maadaama ay caruur yihiin marka waxaa jirto mas'uuliyad kale oo dadka badana ay iloobaan taas oo aan raba cawado inaan barnaamijkan dadka aan ku fahamsiiyo insha Allah taasna waxa waaye body safety quraanka ilaahay wuxuu mas'uuliyad ilaahay wuxuu noo sheegayaa quraankiisa in aan raadsano aqoonta iyo wisdomka meel allaale meesha aan ka helayno ay nooga soo baxayso maxaa yeelay you will never be a loser ma noqonaysid qof ma aragtay dayacan nolosha ku dayacmay ku qasaare macnaha and that's just loose translation and then xadiiska nabigeena wuxuu noogu sheegay in raadinta cilmiga uu yahay mas'uuliyad qofka muslimka ah saaran also waxaan ognahay in nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu dhahay qofkii aan u naxariisanin caruurta iyo waayeelka ummadeyda kama mid ma aha that shows islaamka inuu xoog saaray in ilmaha si wanaagsan naxariis ku dheehan loo koriyo oo dhibaatada laga badbaadiyo marka waxaan soo qaatay 10 qodob oo sidee ilmaha yaryar looga badbaadin karaa ama loo bari karaa jirkooda inay iyaga naftirkooda ilaalsadaan marka su'aasha ugu horeysa waxa waaye sanadkee u sheegi kartaa cunuga
adhi kartaa, I mean, from which age should you tell your kids in about maxaa la dhahaa body safety, yeah? Age ama da-dee ayaad u sheegaysaa cunugaada ama u macneynaysaa sidii ay u badbaadsan lahaayeen jirkooda ama u ilaalsan lahaayeen. Dadka ku khibrada u leh ciyaalka, child psychologists, dadka safeguardingka sameeyaan, waxay badanaa dadka kula taliyaan haddiiba cunuga aad qof kale uga tegaysid inaad bartid body safety, yeah? sababo badanaan ilmaha looga tagaa. waalidiinta qaarkood way shaqaystaan, waalidiinta qaarkood maxaa la dhahaa school iyo nursery ay geystaan iyagoo businessya leh. mararka qaarkood qaraabada iyo familiga uga tagaysaa, mararka qaarkood dariska ugu tagaysaa because daruufo ahaan. haddaa marka cunuga aaba ka tagaysid qof kale uga tagaysid, waa inaad kala hadashaa body safety. marka qodobka koowaad waxa waaye in cunugaaga kala hadashid ama aad bartid magacyada xubnaha jirkiisa, okay? maxaa yeelay haddii aadan barin aadan normal uga dhigin jirkiisa, hadhoodii wax dhibaato ah marka lagu sameeyo ma garan karo waxaas inay inappropriate behavior ay tahay. laakiin cunug waxa haddaa bartid sankaaga waa kan, indhahaaga waa kan, maxaa la dhahaa body partskanne waxaa la dhahaa magacaas aad bartid, uu arko jirkan waa jirkaygi, waa aniga iskale, you know, wuxuu u arkayaa hadhoodii uu fahmayaa wax haddii wax xun lagu sameeyo wuu garan karayaa. so ilmahaaga waxaa lagu leeyahay bar magacyada jirkiisa. waxaa kaloo bartaa bar jirkiisa inuu private u yahay, uu asaga kaliya leeyahay, oo kaliya hooyo iyo aabe ay taaban karaan jirkiisa, especially marka loo qubeynayo kale, marka la nadiifinayo kale, marka kareem loo marinayo kale, yeah? laakiin qof kale ma taaban karto jirkaaga because it's private. adiga iskale, adigoona gooni ku yahay, qofkaa taaban karta ma jirto. waxaa kaloo baraysaa boundaries, ma aragta xuduud inuu jirkiisa leeyahay oosan qofna aysan ka taaban karin, aan hooyo aabe ahayn. iyo dhakhtarka waxaan u sheegaysaa xitaa dhakhtarka markuu ku fiirinayo, because jirkaagu examination ku sameynaa, hooyo aabbaa kula joogaan, yeah? hooyo aabbaa kula joogaan. tan afaraad waxaa baraysaa in secretka, yeah, aysan okay ahayn, inaana waxba la qarsan karin. qariska inay qalad tahay baraysaa cunugaaga. maxaa yeelay dadka ilmaha fara xumeeyo waxay ilmaha ku sasabaan, markay fara xumeeyaan waxay dhahayaan, oh, don't tell this to anyone, this is our little secret, yeah? anakaa isku qarsanayno, anakayna ka dhexaysaa ay ku sasabayaan. marka qaarkoodne waxay dhahaan way ka cabsiyaan, threat ku sameeyaan. oo haddaa sheegtid hooyada ay aabbaha, waxaan dhahaa fikradan adigay kaa timaade. marka ilmihii laga cabsiinaa iyo ilmihii mataqaanaa oo la dhahay this is our little secret. so adigaa laga rabaa inaad dhahdid hooyo secret ma laga qariyo, aabba secret ma laga qariyo, yeah? midda kale baraysid oo shanaad waxay tahay, lixaad, sorry, waxaa baraysaa cunugaaga in xubnihiisa jirka, Soomaalida wuxuu yaqaanaa xubinta taranka, yeah? in qofne aysan sawir ka qaadan karin. sababtaasna waxaa waaye dadka caruurta kufsadaan waxaa jiro business weyn ay qabaan oo ah in caruurtiyo qaaqaawan oo waxyaabo xunxun lagu sameynayo in sawiradooda internetka lasoo geliyo oo lasoo dhigo.
marka ilmaha sawiray ka qaadaan marka cunug inaa bartid waa dhahdid your private part qofkaa sawiri karta ma jirto qof sawirkaa qaadi karta ma laha qodobka kale waxaa waaye in ay hadday dareemaan cabsi ama maxaa la dhahaa walwal iyagoo guri kale joogaan ama baarti joogaan ama cid kale la soo seexdeen in mataqaanaa aa bartid ama qof ay keli ku noqdaan haddii qof hadday keli ku noqdaan cunugaaga inaa bartid how to get out ya inaad dhahdo hooyo adigoo qof la joogo haddaad dareentid in uncomfortable haddaad dareentid waxaa ku dhahdaa qofkaas musqushaan aadaa because dadka ilmaha faraxumeeyo hadday isdhahaan cunugaan musqul u baahan yahay waxa waaye sheekadii ay rabeen inay sameeyaan ka qasmanayso marka inaad dhahdo waayo hooyo haddaa cabsatid qofka waxaa dhahdaa musqushaan aadaa kasoo carar ya mid kalena waxa waaye code inaa u samaysid ilmahaaga code like I said hadday baarta ay kaa jiraan hadday cid kale la soo saxdeen hadday meel kale joogaan dad badan waxaa jiraan co-parenting sameeyaan ilmihii marna waxaa loo geynayaa hooyadii gurigeeda iyo saaxiibadeedii dadkii la joogtay marna aabihii gurigiisii iyo saaxiibadiis dadkii ula joogay marka cunugaaga inaa bartid waa dhahdid in anytime aa uncomfortable dareentid codekaas sheeg marka dadka meesha hooyo qofkaas wax igu sameeyay wuu cabsanaa laakiin hadduu ku dhaho hooyo waxaa isku ogtihiin saasaan rabaa ama ereygii isku qarsateen hadduu kuu sheego isla marka waa ogaanaysaa waa cararaysaa cunugaagaas waa u kaxaysanaysaa yeah and the other one number 8 waxa waaye inaa cunugaaga fareen ka dhigatid aa u sheegtid aa dhahdid hooyo hadduu qof ku taabto adiga qaladka ma lihid and you will never ever be in trouble with me or your dad yeah qaladkaaga ma aha or anyone else for that matter qaladkaaga ma aha anytime oo qof wax uncomfortable kugu sameeyo ama wax something that doesn't feel right to you aniga ii imaaw yeah aniga ii imaaw marka cunugaaga permissionkaaga inaa siisid oo friend la noqotid oona kaa cabsanin Soomaalida waa taqaanaa wax walba waxa dhaca ceeb cunug xitaa waxa la baraa jirkiisa inay ceeb tahay waray ceebtaada qarso imagine marka qofkii ilmihii xooga wuxuu dhahaa oh ceebtaada ay tusisay hooyadana ku dilay is over markaas cunugaaga power ma haysay uu kula hadlo marka waxa waaye the whole point uu sameeyay programkan waxa waaye cunugaaga maadaama aadan mar walba la joogin in aad powerka asiisid inuu maya dhihi karo inuu meesha ka dhaqaaqi karo inuu adiga ku sheegan karo inuu any other adult uu la hadli karo macallimiinta inuu la hadli karo in hadduu gurigu joogo qof kale uu la hadli karo marka cunugaaga waxaa rabaa inaad kartida iyo niyadda ay ka dhistid laakiin adiga dacaynaysid oo adiga ay ka cabsiinaysid oo adiga oo walwal gelinaysid oo jirkiisa magacyo xun ugu wacaysid adhaysid uftaada iyo ceebtaada iyo bahalkaaga iyo kan all this negativity cunug wuxuu arkayaa wax qalad inuu sameynayo marka magaca rasmiga oo loo yaqaan bar inuu jirkiisa natural u yahay bar inuu maya dhihi karo bar inuu mataqaanaa hadduu cabsado uu qofka dhigi karo musqulan aadaya uu sasaban karo xitaa uu hadduu cunug older child uu yahay marka waxaa leedahay sharciyadaas dhan waxaas dhan aan ku baray qof walbay ku apply garaynayaan waa qof walbo aabaha aado hooyaha aato habriraha aato abtiha ahaado adeerha ahaado ya soomaalidana badanaa markii ilmaha waxaan barnaa qof walba inuu adeer iyo habreer iyo eedi u yihiin wax xun ma aha
dadka waaweyn in la xushmeeyo oo la respect gareeyo waay laakiin cunugaaga waxa waaye green light waxa u siisay any stranger inuu iska aamino any stranger inuu friend la noqdo ilmahan ayaa lagu qasbin in dad marti markay imaadaan in la dhaho waryaa bax salaan habsi waryaa macsi waa la isku qasbaa ha ku qasbin cunugaaga because jaafuliya ka dhigaysaa qofkaas adhowsid habsiin wuxuu ku sameynaya ma ogid cunug waa inaa bartaa xag istaag salaamu calaykum abti salaamu calaykum adeer salaamu calaykum eedo ya diintaaba ku baraysaba waa akhlaaq boundaries in la kala yeeshto oo la iska kordhicin maxaa la dhahaa marka dadka badan waxay dhahaan from which age ani waxaan dhahi lahay 5 years cunuga markuu gaaro magacyadani waxaan dhan inuu yaqaano jirkiisa waxaa jirta activity aan rabay inaan hadda wax yar idiin daaro idiin dhageysiiyo ingiriiska dadka joogaan waxaa la dhahaa NSPCC waxa waaye ururka ugu weyn oo ka shaqeeyo ka hortaga abuse-ka ya waxay soo sameeyeen activity oo ilmaha yaryarka dhan loo daari karo oo la fiirsin karo waa cartoon waxa yara idiin daaraya dhageysta because camerada ma rabo inaan jeediyo linkigan hadhowdiyaan meeshaan idiin soo dhigaya waxaa la dhahaa pants activity ya yeah waxa waa basically cartoon la sameeyay and main character kan waxaa la dhahaa Pantosaurus yeah a very clever idea waxa waa dinosaur oo kastuumo wadato Pantosaurus okay marka waxaa la dhahoyaa pantskaaga kastuumahaada adiga iska leh waxaana ku qariyaa private parts kaaga yeah subtitles nu leeyahay so private parts kaaga adiga iska leh hadduu qof kale ku weydiiyo maya dheh yeah qof kale hadduu ku dhaho itusi maya dheh okay Pantosaurus wuxuu jecel yahay kastuumihiis inuu maalin walba wato ya si uu u qarsado private partigiisa ya taasaan strong ka dhigayso haddii qof kale uu ku weydiiyo inuu taabto kastuumaha hoostiisa tell them no may ku dheh ya haddii marka qofkas wuxuu sameynaa marka haddii taas ay dhacdane qof uu aaminsan yahay uu u sheegayaa in la dhahay qof hebel wuxuu dhahay kastuumahaaga itus ama aan ku taabto ma fahamtay that's what the song means your private parts belong to you jirkaaga adaa iska leh hadduu qof kale ku weydiiyo inuu arko maya dheh hadduu qof kale oo ku dhaho itusi waxa ku jiro kastuumahaaga hoostiisa macnaha u sheeg inaa maya dhahdid because adiga iska leh jirkaaga ma fahamtay go and find someone you trust qofa aaminsantaa u sheeg haddaa ka hadashid everything okay noqonayaan wuu dheelooyaa marka dinosaurka okay so wixii ku dhex jiro kastuumahaaga adi kaliya iska leh ma fahamtay
waxaa ku dhahdaa maya dheh. Marka macnaha waxaa waaye it's so beautifully done, cartoon ahaana loo sameeyey, message-kine waxaa loo soo deliver gareeyey age appropriate way. Ma fahamtay? Caruurta luqad ay fahmayaan oo exciting loo sameeyey, like waa very empowering. Message-ki dhan loogu soo sheegay. Kastuumaada wixii ku jiro hoostiisa adiga iskale, qofku dhigi kara tusi ma leh. Kastuumaaga hoostiisa qofki rabo inuu taabto maya dheh. Qof weyn oo aaminsan tahay u sheeg. Maxaa la dhahaa, waxa kastuumaada ku hoos jirane waa private parts kaaga adaa iskale. Private ku yihiin, qof ku taaban karto iyo qof fiirin karto iyo qof secret aan qarsana ku dhigi karto ma leh. Marka waxaan sameynayaa our advice, please and please and please, ilmihiina yaryarka xitaa kuwa waaweynka isla fiirsada as a family. Ha laga hadlo, ilmaha ha la baro, because waxa waaye waxaan joognaa the age of technology. waxa waaye xilligan laba choice leedahay. Ilmaha in wax kasta oo quseeya dadka waaweyn, sex education and whatever, inay ka bartaan their peers, ilma iyaga la face. Ama adiga ilmahaaga si wanaagsan oo diinteena waafaqsan in adiga u bartid. Labadaas choice haysataa. Ama wrong information inay helaan, ama the right information adiga inaa siisid. Marka I know aniga bawaalidaan ahay inaan ilmahayga kala hadlo waxyaabahan oo aniga naftirkayga leesoo barin, inaan ilmahayga kala hadlo way adag tahay. Laakiin waa inaan baxnaa, anarkii knowledge-ka raadsanaa, nafteena ku apply gareynaa, kadib ilmaheena barnaa. Safety-ga ciyaalkaasaa u baraysid, cuntada si loo cuno, gacmaha loo dhaqdo, musqusha loo galo, laysku nadiifiyo, salaad loo dukado. Tanna waa mas'uuliyad waalidiinta saaran. Tanna waa inaa bartaa body safety, sidoo cunugaas u ilaalsan lahaa jirkiisa. Haddii kale waxa waa abuse-ka way sii soconaysaa. Soomaalida ka dhacdaa, muslimiinta ka dhacdaa, gaale ka dhacdaa, everyone ka dhacdaa. The only difference is wadankan joogno waxaa la sameeyay horumar badan oo gaaray. Wadan waxa waaye oo qadiim oo lacag haysto, dadki training badan la siiyay, macallimiinta. Hadda anybody that works in an environment meel ciyaalka joogaan, ama school ha ahaato ama meel kale ha ahaato, waxa waaye qof walbo kan dhulka dhaqaaya ilaa fiishtirtoorka, head teacherka, waxaa la soo sameeyay child protection training la sameeyay, sidii ilmahaas loo badbaadin lahaa la baray. Marka laakiin anaka ma haysano dawlad burburtaan ka aan haysan. Dawlad burburtay oo hadda soo kabsanaysa haysanaa wadan yar oo resources badan lahayn. This is why aniga mas'uuliyad iskaga saaray wixii information aan nafteyda baro, maadaama aan campaigner ahay, buugaagtan akhriyaa, trainadan tagaa. I'm trying to be an expert in this maxaa la dhahaa child protection field, especially child sexual abuse. waa very important topic way. Marka wax alaal wixii aniga knowledge ama benefit on aan soo ogaado in gabdhaha walaalahay, wiilasha walaalahay, in aan la qaybsado. taasna waxa waa mas'uuliyad oo islaami oo isaaran waay. haddii hal hooyo ama hal aabba cunugiisa uu ku badbaadsado waraan aniga u sheegay, waxa waaye waa intaan rabe waay. dad badanaa ku dhahay rooda lacagaynu soo qaadatay iyo gaalaa soo dirtay iyo no, this is Islamic duty. haddaadan fahamsanayn adigoo qof muslim oo ilaahay ummadaha dhan kaa sharfay, haddaadan fahamsanayn mas'uuliyadda kaa saaran ilmahaaga iyo ilmaha kale oo muslimiinta safety-gooda, I guess anigii adiga kala diinaan qabnaan ku dhahaa. isku diin ma wadano. mar walba xasuusta nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiiskiisa, qofkaana ilmaha u naxariisanan iyo waayeelka annaka nagama mid ma aha. marka insha allah ma raba inaan ku dheeraado. fadlan shaargareeya, fadlan ilmaha la fadhiista, safety-gooda bara, jirkooda bara, because inta cunug dhaawacsan daaweyntiisa
iyo qalbi dhisiisa because waxaan wax la sida looga soo kabsado way adag tahay child sexual abuse dhibaatooyin badan oo kasoo gaaro qofka mental health ku dhaco badan and relationship qofkas inuu keep gareeyo way adag tahay because trustiga ka dhumay and maxaa la dhahaa dhibaatooyin badan soo gaaro even xitaa markuu qof weyn noqdo marka inta aanan haysan lahayn dad badan oo waaweyn oo dhaawac gaarsiisan we need to come up with ideas and ways of preventing prevention is better than cure lamo inta wax la daaweyn lahay in laga hortago ka muhiimsan marka insha Allah ilmihiina la fadhiista xishood ma jiro diinta ku dhayso wax baro seek knowledge marka inaan aan ilmaha la fadhiisano barano pants activity kana insha Allah I will post it NSPC ga hadaa tagtiin further information maxaa la dhahaa ka helaysiin hadaa artiin dhibaatada qof ku dhacday ama asigoo yar soo maray and technology aniga ila xiriiri kartiin ana idin si gudbinaya ama Google ayaa la meel walba ilaahay khayr siiyo and research kaaga waa samaysan kartaa waxaa jiraan organizationyaal badan oo dadka caawiyana la hadli kartid I'm here to support you and victim hadaa tahayna I believe you waana kasoo kabsan kartaa laakiin cashirkan focuskiisa waxay ahayd ka hortaga iyo inaan ilmaha badbaadsano. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.